asalaamu calaykum daawadayaal dhammaantiinba waxaan halkan ka salaamayaa asxaabta sharafta badan leh iyo daawadayaasheena qiimaha leh. baaqaygana wuxuu ku jahaysan yahay warbaahinta iyo cadaadisteeda sida bishii horeba aanu idinku soo warannay. waxa aanu bishii hore ee shanaad dhammaadkeedii aanu soo sheegnay in ay jirto cadaadis kala duwan oo kala sarsaraysa oo noocyo fara badan leh oo warbaahintu wajahayso meel kasta oo ay ka joogto geyga Soomaalida. haddaan intaa ku soo dhaafo, waxaa iyadu xusid mudan in maanta ay ka dhacday Somaliland fal ku xadguduba warbaahinta. anigu ka hadli maayo, odhana maayo in la xayiro ama albaabada loo laabo warbaahin waa khalad. waxa keliya ee aan ka taabtay dariiqa loo soo marayo iyo fudeediska dhayalsiga lagula kacayo warbaahinta. waxaan ka hadlay hadday odhan doonaan maanta unbaad kula soo kacday, waxaa xusid mudan in dhowr jeer aanu ka hadalnay in warbaahinta ay ururada iyo maamulada iyo dowladaha Soomaalidu meel kastay joogaanba ay cadaadis iyo fara ba-an ku hayaan. haddana tiifiyada maanta xayiraada la saaray oo aan wax maxkamada la geynin, oo aan wax dembiya lagu soo cadaynin, oo aan wax dembiya laga sheegin, si dhayalsi iyo fudeedis iyo kula kac leh albaabada loo laabay hadmar. warbaahintaas oo shaqadooda gudanayay waxaa dhici karta in dad boqolaal qof gaadhaya ay ka shaqeynayaan. dabcan waa tv daaray kirooyin ka bixiyaan, dad kalaa ku hoos nool, qaar baa gawaadhi ay ka kareystaan. dhaqaalaha magaalada iyo dhaqaalaha waddankaba wax badan ayaa warbaahintu ay ka tahay. marka albaabada meel loo laabayo miisaaniyaddeedu waxay tahay dad badan ayaa dee aad shaqadoodii iyo wax soo galayntoodii iyo dhaqaalahoodii aad ishortaagaysaa. taasna in la fudeedsado oo nin dhergay uu ku dhayalsado oo uu ku dhergdhacsado waa laga fiican yahay. baaqaygu wuxuu ku socdaa laba meelood. ta koowaad waa xukuumadda Somaliland oo sidaanu sheegnayba dhayalsatay xadhigga iyo cadaadiskii caburinta warbaahinta. ka labaadna wuxuu ku socdaa ururka Soldier. ururka Soldier sidaynu ognahayba muddooyinkan dambe waxaa lagu xantaa inay ka amar qaadato wasaaradda arrimaha gudaha, sayidkeeda iyo guddoomiyaheeduna uu yahay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland. taas oo keenaysa lafjab iyo cadaadis labaad oo warbaahintu halkii ay ka filanaysay inay haystaan urur difaacaya ururkii iyaga uu hoosta lidi kaga yahay. waxaa xusid mudan in ay jiraan suxufiyiin xidhxidhan oo ilaa haddadan aan wax dembiya maxkamada ku soo oogin ee haddana xidhan oo aanay ka hadlaynin ururka Soldier. waxaa xusid mudan in ay jiraan meelo badan oo lagu calqaladeeyey warbaahinta oo aanay ka hadalin ururka Soldier. waxaan ugu hambalyeynaynaa inay maanta si habsami leh uga hadleen arrinkan tiifiyadan albaabada loo laabay, inkastoo ay jirto qawad dhanka hadalka ah waanu qawadsannahay. waxaanu ogeysiinaynaa haddii ururka Soldier uu warbaahinta waajibkeeda uu u gudan waayo in uu fadhiid noqonayo. fadhiidkuna daadax kuma kaca ee in laga dulguurayo. warbaahintana xukuumaddana inay ka waantowdo dhayalsigaas aan soo sheegay, warbaahinta la carbinayo
cadaadiskaas xadhigga bilaashka ah waxyaabaha ka hor imanaya ama si toosa u soo ataagaya xuquuqal insaanka iyo xorriyadda shakhsiyeed iyo tan warbaahineedba. waxaa haddii ay dhacdo in ay sidan ku sii socoto waxa hadda la hadal hayo wax ka xun baa imanaya. waxaa keliya ee aan ku dari lahaa in xukuumadda iyo ururka Soldier aanay isku milmin. wasaaradda arrimaha guduhuna ay kala baxdo faragelinta ay ku hayso ururka Soldier iyo warbaahintaba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.